بالعلم بل بالأدب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوعنا waxaan kaga hadlaynaa islaamka iyo nolosha, bimacnaa yani islaamkeenu in uu ku wada jiro nolosheena oo dhan oo meel uu ka baxsan yahay aysan jirin. taasna waxaa keenaysa inaan uga hadalno. waxaa laga yaabaa dadka yani fahamka islaamka laga haysto in uu yani meelaha qaarkood ay dadku ku koobaan, oo haddii islaam ha la yidhaahdo ama laga hadlo la yidhaahdo ay noqonayso in ay yani ama salaad ama soon ama xaj, yani arrintan la yidhahdo shacairta cabudiyada inay islaamka u yaqaanaan. laakiin taasi waxaa diidaysa oo inayna qaybtaas oo keliya in islaamka ay ahayn. salaada markaynu tukanayno ducada aynu ku bilaabano ama aayadda qur'aanka ah oo aynii wajahtu wajhii liladii fadara asamaawaati waalarda xaniifan musliman wamaa ana min almushrikiin ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaati. halkan marka noloshayda wa maxyaaya waa noloshii oo dhan, wa mamaati geerideeda lilaahi rabbi alcaalamiin, ilaahay ayaa iskale. marka nolosha oo dhan ilaahay baa iskale. waxaa rabaa marka nolosha meelaha kala duwan ee ay nolosheennu ay u qaybsan tahay, oo arrimo bulsho hadday tahay iyo arrimo siyaasadeed hadday tahay iyo noocay dooniba ha ahaatee, in uuna islaamku ka maqnaanin. oo meel kasta oo la joogaayey sida islaamku uu rabo in meeshaasi lagu ahaado in lagu ahaado ayaa loo baahan yahay. marka islaamkeenu sida uu yahay oo meel walba ugu jiro, yani waxyaaba waxaa jira nafta bini aadamka ah haddii aan la farin xataa oo samee aan la dhihin, yani baahida ay iyadu u qabto ay u samayn lahayd. oo tusaale ahaan in wax la cuno iyo in wax la cabo iyo in maxay ahayd reer la yeesho oo yani dadka waxyaabaha ku abuuran yani ay gutaan, yani waa wax dadka ilaahay uu ku abuuray. oo yani haddaan aayad loo soo dejina xataa ayagu ay iska yani baahida haysa daraaddeed ay u samayn lahaayeen. markaas haddana waxa leeyahay kuluu washrabu, cuno oo caba. marka saas loo leeyahay macnaheed waxay tahay haddii qofkii waxna uu cuno waxna uu cabo, waxa uu saa u yeelaayana yani ay tahay yani noloshaada ha ku sii socoto. haddii aan wax la cunin waxna la cabin noloshu ma sii soconayso. noloshu intay sii socotana ilaahay aad ku caabudid oo aad diinta ugu khidmaysid markuu niyeysto, cuntadii iyo cabitaankii ayaa waxay isu bedelayaan cibaado ayay isu bedelayaan, oo qofkii ajir ayuu ka helayaa. sida nabiga sal ly slam buu inoo tilmaamayo, qof ayaa cunto cunaaya markaasuu ilaahay ku mahadinaya, ama cabid ayuu cabaaya markaasuu ilaahay ku mahadinaya. markaasaa ilaahay mahadintaasi oo cuntadii iyo cabitaanki uu ilaahay ku mahadiyey ayaa ajir looga qoraaya. asagaana is anfacay oo hadda naftiisii ayuu nooleeyey oo haraadkii iyo gaajadii ayuu ka bi'iyey. marka islaamkeenu waa sidaas. aayadaha qur'aanka ah ayaa waxaad arkaysaa hal aayad oo wixii nolosha oo dhan ahayd ka wada hadlaysa. hadday ahaan lahayd xagga caqiidada, hadday ahaan lahayd xagga mucaamalaadka, hadday ahaan lahayd xagga cibaadaadka, yani hadday ahaan lahayd xagga akhlaaqda, dhinac walboo dhan ayaa hal aayad ayaa lagu soo koobaya qur'aanka ku jirta. markaas intaaso dhan markii lasoo sheego yaa waxaa lagu soo khatimayaa dadka iimaankooda ama islaamnimadooda kaga run sheegay waa kuwa sidaas u qaatay diinta. oo suuratulbaqara ilahay wuxuu ku leeyahay laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi waalmaqribi walaakina albira man aamana biاllahi waاlyawmi alaakhiri wاlmalaa'ikati wاlkitaabi wاlnabiyiin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. آيداس يعني قيب هو وحلقها الله عقيدة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. انتاس وعقيدتي. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائرين وفي الرقاب. انتاسنا ونحريستي معاملاتي. وأقام الصلاة وآتى الزكاة وشعائرتي تعبدي وصلاتي الزكاة وأقام الصلاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. يعني حاجاسنا وبلنتي أخلاقي يدك سوى رقم الهاين. intaas oo dhan markii laga soo hadlay oo isku hal aayada oo caqiidadii la sheegay oo mucaamalaadkii la sheegay oo cibaadaadkii la sheegay oo akhlaaqdii la sheegay yaa ilaahay wuxuu yiri ulaa'ika alladhiina sadaquu wa ulaa'ika humul muttaquun. yani waa arrin runtii aad iyo aad muhiim u ah in islaamka sidaas guud ahaana loo qaato. haddii la qaadan waayo oo yani qayb laga dhigo oo yani qaybna laga tago qaybna la qaato, waxayna qabanaysaa reer banu israa'iil aayaddii ilaahay uu ku yiri afatu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacdin. يعني كتابك قارنا ما رمينيسان قارنا ما ديديسان. إنما مؤمنين هدانها إلهي وحوين أمري يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إسلامك أصوى قال سنة ميسترا بمعنى كل جس وذقاته يعني مالنا هكتجنا مالنا هدافنا
kitaabkan ilahay wuxuu usoo dejiyey nolosha in lagu maareeyo. wuxuu la mid yahay walilahi mathalu aclaa, dadka si loo fahamsiiyo yani qalabka aan isticmaalayno ama meediyaha aan isticmaalayno ama telefoonada aan isticmaalayno ama baabuurta aan isticmaalayno ama khasaalada aan isticmaalayno, adeeg tuuliska ama qalabka aynu ku dhaqanno oo dhani markii lasoo saaro warshadii soo saarta waxay soo raacisaa buugii habka loo isticmaalayo iyo hadduu kaa xumaado habkii loo cilad bixin lahaa iyo waxa uu yahay ka sheekaynaysa oo tafaasiil ah. noloshan aynu ku noolnahay ilaahay wuxuu soo raaciyey kitaabkan qur'aanka ah si wixii kasta oo aan u baahanno aan xal uga helno. saasaa ilahay wuxuu noo yidhi ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam. qur'aankan wuxuu dadka ku hanuuninaya sida ugu habboon ee ugu fiican. hadda inaga waddankeenna iyo duruufaha ka jiraay dadku waxay aad yani ugu baahan yihiin nabadgelyo inay helaan. nicmada markii lagu jiran aad looma dareemee markii ay dhaafta ay dadku aad u dareemaan. nabadgelyadaasi sida loo sugo oo nabad loo ahaado haddii sharciga ilaahay loo maro yani qof kala taaban laha ma jirto. maxaa yeelay sharciga ilaahay ma yaqaano kanaa weyn iyo kanaa yar iyo kanaa yani oo kanaa la daynaya iyo kan ma jirto. yani dadkao dhan ayuu khuseeyaa, cid ka weyna sharciga ma jirto. yani haddii doonto xagga mas-uuliyadda la kala qaadayo ha kala duwanaato oo xagga da'da haddii la doono marka qaarkood ilmaha yaryarka oo kale axkaam gaara ha loo sameeyo, dadka waaweyn axkaam kale ha loo sameeye. laakiin ugu dambays markii la fiiriyo islaamku dadkan oo dhan ayuu usoo degay in lagu dhaqana ay tahay. marka haddii qaar la qaato qaarna laga tago waa lagu dambaabaya. qur'aanku wuxuu ilaahay nagu leeyahay wa an ixkum baynahum bima anzala allahu walaa tattabic ahwaa'ahum waxdarhum an yaftinuuka can bacdi ma anzala allahu ilayk. iska jir inay dadku kaa fidneeyaan wixii ilaahay uu soo dejiyey qaar ka mid ah. haddii qaar ka mida lagaa fidneeyo yani waa wixii o dhan oo la fidneeyo oo kale ayay la mid noqonaysaa. marka saas daraaddeed lama ogolo in qaarna laga qaato qaarna laga tago. waxaa rabaa kulligii in la wada qaato. islaamku ma kala qaybsamaayo, wayna isku daayayaan dadka aan diinta jeclayn ama aan diinta ogolayn in qur'aanka meelaha markaas hawadooda aan la soconayninoo cubuudiyadooda muujinayo oo inay isdhiibaan caddaynaysa inay dhahaan qur'aanka meelahan wuu ka adag yahay, axkaam adag baa meelahan kaga jirta, ha laga leexdo ama si yani wax cusubna maahan. qur-aanku markuu soo degaayeyba saasaa lagu bilaabay oo dadkii habnooleedkooda si u qaabaystay sidaas in laga duwo oo si kale loogu dhigo way diidanayeen. maxaa yeeley habka ay dadku u samaysteena waxay ahayd in dabaqaad dadku ay u qaybsan yihiin, dad sare oo madax ah oo maalqabeenno ah iyo dad hooseeyo ay ku amarku taagleeyaan. qur-aankan markuu imaaday dadkii oo dhan ayaa la simay oo ma jirto cid kale awood u sheegan karta. dadkii waxay noqdeen annaasu sawaasiyatun ka asnaan ilmisht. markaas waxay isku dayeen dadkii markaa joogay ee adduunyada hab u qaabaystay oo habka ay wax u samaysteen in laga guuro ka cabsanayaan inay nabiga ku yidhaahdaan qur'aankan ama ku kala keen oo kan hadda waan aragnay waana ku qancila aan ahay ku kala keen, ama meelaha aanan rabin ayaan kuu sheegaynaa meelahaas ka bedel, inta kalena waan ogolnahay. waidaa tutla calayhim aayaatuna bayinaatin qaala aladiina laa yarjuuna liqaa'ana i'ti biqur'aanin hayri hada aw badilhu qul maa yakunu lii an ubadilahu min tilqaa'i nafsii in attabicu ilaa maa yuuxaa ilaya. waxay yidhahdaan ama qur'aankan yani mid kala keen ama naga bedel meelaha qaarkood. waxaad ku tidhahdaa layidhi aniga iima ahaanin mana dhici karto an ubadilahu min tilqaa'i nafsi inaan naftayda xaggeeda ka bedelo, in attabicu ilaa maa yuuxaa ilaya. wixii la ii soo waxyooday ee la ifaray un baan raacayaa. taasuu ilahay inagana in amrayo ilahay wuxuu leeyahay fastamsik biladii uuxiya ilayka inaka calaa siraatin mustaqim. marka nabiga lagu yidhi yaa waxaa ilaahay kitaabkaasaa laidiin soo dejiy laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun. marka kitaabkaasi in lagu wada dhaqmo oo nolosheenna oo dhan yani ay noqoto nolol yani qur'aanka ku salaysan, taasaa waxaa lagu helaa akhlaaq wanaagsan. nabiga sal allahu alay wasalam oo akhlaaqdiisu ay aad u qiimo badan tahay oo ilahay uu ku ammaanay oo layidhi wainaka la calaa khuluqin cadiim. markii la weydiiyey umulmuminiina caaishana habdhaqankiisu waxay tiri habdhaqankiisu waa qur'aanka un. bimacnaa haddii waxyaabaha qur'aanku inaga celinaya aan ka joogno, waxyaabaha uu ina farayna aan yeelno oo nolosheenna oo dhan oo islaamkaas uu ku qaabaysan yahay, wax dhibaata oo dhacaysa ma jirto. tusaale ahaan maalan mararka qaarkood dadku waxay sameeyaan qof baa wax sheega qiila waqaala, markaas iyadoon la hubsanin yaa laga yaabaa dadkii waxaas laga soo sheegay in dhibaato la gaarsiiyo. markaasa qofkii marka dambe wuu ceeboobayaa oo war waxaas maxaad u samaysay, markaasuu le waan khaldamay, sidaas ma u malaynay, si xun baa wax laygu soo sheegay. qof wuxuu noqonaa marka dhacdciisu u badan yahay. laakiin qur-aanku wuxuu ina amrayaa markii war la soo sheegaba inaan markiiba lala boodine bal horta la iska hubsado. yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu, yani caddaysta oo warkan hubsada. macnaha saas waxaa loo yeelayaa si ayna idinku dhicin an tusiibuu qowman bijahaalatin fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin. in dad aan waxba galabsanin intaad kula kor dhacdaan hadhow mar dambana aad ka shalaysaan. marka haddii wax la hubsado, deganaansho lagu dadaalo,
wax kasta oo lasoo sheegay aan lala boodin ee horta bal la iska hubiyo xaqiiqanimadkiisa iyo in kale hadday dhaqaalo tahay dhaqaalihii islaamka iyo sida uu qabay oo xaaraanta la iska ilaaliyo ribada la iska ilaaliyo qishka la iska ilaaliyo qararka iyo beeca la isku kadinaya la iska ilaaliyo oo qof walba wixii xaq ah ee asaga xaggiisa jira uu soo celiyo wixii waajib ee saaran uu ka soo baxo qofkii wuxuu noqonayaa nolol hagaagsan hadday duruuftu keento inay dadku isku qasmaan oo dadkii ay dhibaato badan ay la imaadaan oo la isku xadgudbo oo la isdulmiyana islaamkeenu xal ayuu ka keenay wuxuu yidhi yani markay dhibaatooyinka ay dhacaan oo weliba dhibaatooyinka intii la tilmaamay la yidhi dhibaatadii ka dambaysay way kasii daran tahay ilaa midii hore laga iloobo oo la yidhaahdo middan baa ugu daran tanaa lagu halaagsami doonaa oo haddana laga baxo haddaba saasoo kale markay dhacdo nebigu wuxuu yidhi qofkii raba in uu jannada la geliyo naartana laga fogeeyo geeridiisa ha u timaado asagoo ilaahay aakhira rumaysan dadkana ha ula yimaado sida uu jecel yahay in asaga loola imaado waa habdhaqan wanaagsan mararka qaarkood maamulada iyo dadweynaha iyo mucaarado iyo waxbaa mararka qaarkood ka caaya saasoo kale markay dhacaan nabiga sal ly slm waa la weydiiyey oo waxaa rasuulka ilaahayo ka waran haddii ayna qabsadaan madax waxa ayagu ay naga rabaanna naga qaadanayaan wixii annaga aan ka rabnay bulsho ahaanna aan dib noogu soo celinayn maxaadna amraysaa intuu ka jeedsaday si asagoo yani inkirsan mawqifkaa sidaas oo kale ah in ay ummad muslima ay gaarto laakiin adduunka wax walbaa dhici karee intuu ka jeestay markii dambe ayaa wuxuu ku yidhi qofkii su-aasha weydiinayay hadday sidaas ay dhacdo tu'adduuna alxaqa aladii calaykum watas'aluuna allaha aladii lakum waxaad gudanaysaan xaqa idinka idin saaran ka idinka idinka maqanna ilaahay baad weydiisanaysaan intaas waxaa loo yeelayaa in wixii o dhan intii laisku dhex yaaciyo marka dambe fidno meel ay ku dhammaata yani aan la garanaynin inay dadku lagu halagalaan marka qofkii wax dareemaayo ay wax ka maqan yihiin haddii asaga arrimihiisa wax ku saabsan iyo danihiisa iyo maslaxo ay tahay hadduu iska dhaafo oo iska dhaafaasi uu keenaayo inay ummaddii faa'iidaysato asaga waxbaha ka maqnaada hadduu doonee inuu iska sabra ayaa la rabaa waxbaa iga maqan daraaddeed inuusan wax u hadlaynin qofkan wax ku maqan yihiin ee asaga wixii saaraa aan ka soo baxaynin ama maamul ha sheegto ama wax kale ha sheegtee asaga ayaa dhibaato qaba maxaa yeele asagaa loo sabray marka diinteenna islaamku meel ay dhaafaysa ma jirto nolosheenna oo dhan ayaa waxaa la rabaa in lagu qaabeeyo dhinacay dooniba ha ka ahaato xagga arrimaha bulshada ha ahaato oo dadkii inay meel ka soo wada jeedaan waxa lagu kala fiican yahay alla kacabsiga inay tahay ha ahaato arrimaha dhaqaalaha ha ahaato arrimaha siyaasadda ha ahaato caadaadka iyo dadka waxyaabaha ay qabsanayaan meel islaamkan uu dhaafayo ma jirto marka saasaa waxaa loo yidhaahdaa islaamku waa nolol yani nolol kalena ma jirto oon islaamkan aan ahayn ciddii wax kale nolol ka raadisana hadday maalmo xataa nolol markaas ay samaysatay ay kusii socoto waa nolol nihaayadeedu ama dhammaadkeedu uusan natiijo lahayn waxaa natiijo leh nolosha ku qaabaysan diinta islaamka adduunkana cize iyo sharaf ayaa lagu noolaadaa man kaana yuriidu alcizata falilaahi alcizatu jamiican aakhare markay noqotona qofkii mu'min soo ah oo cizaas ku soo noolaa meel wanaagsan iyo janno ayuu ilaahay gelinayaa marka qur'aankeenna iyo islaamnimadeennu adduun iyo aakhara waa inoo toosinaysaa waxaa rabaa marka inaan ayagaas aan ku dheganaano oo islaamkeennaas aan xoojisano oo yani asagaas ayaa ina midayn kara oo qof walba asaga ayaa weyga uu leeyahay iyo waxa laga raba u sheegaya waana dastuurkii ilaahay uu adduunkan ugu talagalay in lagu dhaqo dad gaara uma soo degin wuxuu usoo degay biniaadamka o dhan biniaadamka o dhan hadday wada qaataan oo isku maareeyaanna adduun iyo aakhiraba way liibaanayaan dadka mu'miniinta ah oo innaga haddaynu soomaalinahayn aan ka mid nahayna rumaynta aan kitaabka rumaynay ha inagu keento hana inagu qasabto waxa kitaabka uu sheegayo inaan nolosheenna aan ku dabaqno nolosheennana ay noqoto qur'aankaasi sida uu sheegaayo inagu oo fulinay saasa waxaan ku noqonaynaa sidii musxaf dhulka ku socdo oo kale sida asxaabtaba loogu tilmaamay inay ahaayeen musxaf dhulka socdo oo kale bimacnaa wixii uu amro musxafku ama qur'aanku way yeelaayeen wixii uu ka reebana way ka haraayeen ayagoo aan ka taradudaynin saasay marka cize iyo sharaf ku yeesheen adduunkii markaas ay joogeenna ay ku maamuleen aakharana natiijo fiican iyagoo fadli badan la tegey ayay baxeen innagana saasaa laynaga rabaa ummaddii hore wixi ay ku liibaantay ayay ummaddan dambana ku liibaanaysaa duruufahan ina haysta iyo dhibaatada inagu dhacdayna waxaan uga bixi karnaa sidii hore ay uga baxeen ummadihii hore oo ahaa in dadku ay masaajidada ku xirmaan oo qur'aanka iyo diinta iyo cibaadaadka ilaahay masaajidkii iyo nuurka laga hogaamiyo oo bulshadu masaajidka iyo mixraabka wixii ka soo baxaya iyo halkaas inay ay ku xirnaadaan walaalana ay ahaadaan oo walaaltinimadii iyo isku xirnaanshihii iyo bulsho isu kaalmaysa in la noqdo wixii ummaddu ay ku heshiiso oo ay wada dhigtaanna wasulxu jaa-izun bayna almuslimiin oo maalan ay ka mid tahay xukunka iyo sida loo qaybsanayo iyo xilliga la isdooranayo iyo sida la isu dooranayo wixii ummaddu ay ku heshiisana sharci ayay noqdaan almuslimuuna calaa shuruudihim ayaa layidhahdee intaa haddii qof walba dhinaciisa uu ka ilaaliyo nolol wanaagsan ayaa lagu noolaanayaa islaamkuna saas ayuu inoogu baaqaya oo ina faraya ilaahay subxaana watacaala haynaga dhigo kuwii qur'aankaas ka faa'iidaystay oo noloshooda ku dabaqay oo cize adduunyo iyo cize aakhiraba ku helay waad ku mahadsantihiin idinkana la socodka barnaamijka aad iyo aad wassalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu
بالعلم بل بالأدب